يا أوركا أبوانا نجا حاجي بحالي لا سو هادلay ujeedada iyo ajandaha toona midna kama warhaynin laakiin fikradda markii halkan lagu soo bandhigay runtii waan la qaatay waana fikrad aad u qurux badan laakiin mid baa iga dardaarana waxa weeye dunida sharciyad bay ku kala socotaa ururraduna waxay ku shaqeeyaan waa sharci boqolaal sanadood ku jiraan waxaan u soo jeedinayaa hoggaanka ku meel gaarka ah ee ururku inay sharciyad adag oo ururku ku sii jiri karo mustaqbalka in la sameeyo in laga ilaaliyo qabyaaladda in laga ilaaliyo danaha shakhsiyadeed iyo in laga ilaaliyo wax kasta oo dhaawici kara jiritaanka ururka ururkan markaa waa inuu ka shaqeeyo qoristii bahda suugaanta abwaanada hadday noqon lahayd suugaanteeda waa in la kayd loo sameeyo meel laga helo hadhow toolo loo tixraaco waa inuu ururku yeeshaa waanan hambalyeynaya hoggaanka ku meel gaarka allah idin guuleeyaan leh halabuurka intaa laga isu yimi oo qaarkood sidaa iminka arkaysaan ay maanta isbarteen iyagoo ismagac garanayay in aanay ismuuq arkin sababtuna ay tahay isku xidhnaantooda oo aan xooganayn haddii waa mas-uuliyadduna waa culayse haddii halabuurkaasi isla gartay inaan si ku meel gaadha u hoggaamiyo ilaahay horta waxaan ka baryayaa inuu igu asturo idinkana waxaan idin weydiisanayaa in ay la shaqaysaan waxaan idin gaadhsiin doonaa sharciyaddii nidaamkii iyo guud ahaan jiritaankii ururka halabuurka qaranka inaan dhammaystiro midnimadeenna inaan xoojinno inaan noqonno urur isku xidhan oo kaalinta qaranka uu ku leeyahay guta oo meel loogu hagaago la helo oo inaan abwaanba gaar loo raadsane meel ay ku idishiin inuu noqdo si aynu kaalmaheena kala duwan iminka nabad baa jirtay qaranka nabadayn baa xukuumaddu ay waday kaalinteenu ku lahayn kamay muuqan haddii ay ka muuqatayna way yarayn haddii sidan oo kale aynu isugu xidhannahay waxaa iman lahayd in aynu kaalin muglo oo miisaan loo qaranka anfacdo dadkeenna anfacda inaynu samayno ilaahay baa se kuma hadlay inaynu istaba qabannay inaynu garannay inaynu macno ku leenahay midnimada inaynu macno ku leenahay wadajirka inaynu macno iyo miisaan ku leenahay markaynu wada soconaynu isku mabda'nahay aragtiyu isbedeli karaa in badan oo kala aragtiye ahaa ayaa maanta isku aragtay oo isku dana xisbiyadu way isbedeli karaan madaxdu way isbedeli kartaa innaga danteennu waa mid teenna inaan ku midaysnaano wixii maaragtay danteennana aan ku wada soconno ayaa horta marka horeba wanaagsanayd maantana dabaqabatay heshay ilaahay amarkiisa kulamo dambe ayaynu isugu iman doonaa intan in ka badan baynu isugu iman doonaa talaabooyinka ugu horeeyaanu qaadnana waan idinla soo wadaagi doonaa ilaahayna waxaan noo baryaa inuu tawfiiqdeena inoo wanaajiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi سلطانك جود سلطان سعيد دمان سلادينتا مدحدا كله dhaqanka haldoorka iyo ningarboodka halkan isugu yimi waxaan idinka mahadnaqayaa inaad safar dheer soo gasheen inaynu caawa halkan isugu nimaado xukuumadda aan anigu odayga u ahay laba wax baa ka go-an ta koowaad waa in dalka la nabadeeyo ta labaadna waa in la walaaleeyo oo la mideeyo 10 bilood bay xukuumaddaydu jirtay ilaa bishii koowaad
nabadeynta sidaan maanta wa sheegay gobolka Sanaag waa ku jiray waxyaabo hore way noo dhamaadeen oo Ilaahay baa mahad leh inoo fududeeyay may hawl yaray mid waxay qaramayntii oo dad hubaysan oo aan discipline ciidanka lahayn oo qoriyista in la qarameeyo may hawl yaray madana waxay colaadii ka jirtay cilaf weyn argaabo waxa la kowsaday iyadoo dhibaatadeeda ammaanku ay bilaabantay ninkii ugu horeeyay lagu dilay magaalada Dhulbahante markii la dilay Nairobi baa joogayo Nalay Axmed Suldaan Saciid waxaan kala hadlay Addis Ababa waxaan ku yiri Suldaan waxaanu u baahanahay inaynu dadkii nabadoodii markaanu mucaarid baan ahay dawladda baan ahay intii ay joogayna waxaan ku dadaalayuu in nabadda la sugo iguma ismin 12 bishii la dhaariyay 14kiina maalin kadib dagaal ba ka dhacay Sanaag asay sheemar walba waxa lahaa ciidamada intii aan xukumayna cid wax weerari kartaa ma jirto Suldaan Saciid ilaa maalinta aan kala hadlay Nairobi ee doorashada ka horeysay waxaan uga mahadnaqayaa inuu si buuxda aan uga wada soconay أنا مدحوينا يا أنا مدحوينا هين با أنا نبض كوضع شقيم أنا نبض ماشي تكتون وتجيه ويضد خيج ماما مولي كرا ورمرو مكيري كرا هذه أنا نبض حسن خسارة ويا ربح يقف في الدم يقول بس كقحة هذه جدي أساسي حرب بابايا هذا يخبر الشط هاي هذا عافمات هاي waxaan idin ballan qaadaynaa horta inaynu nabadda ka wada shaqeyno kadibna xukuumadda waajibkeedu yahay in amniga iyo nabadda la sugo qofka muwaadinka waa inuu nabad ku seexdaa oo nabad ku soo toosa oo nabad wadada ku mara haddaynu ka wada shaqeyno umaynu suusagelisa xukuumaddu keligeed kama shaqeyn karto waxay baahan tahay dadkeedu inay kala shaqeeyaan qaramayntu ma suurta gasheen wadaadka caaqilka ganacsatada xildhibaanka siyaasiga haddaan laga wada shaqeyn ma suurta gasheen wax kasta oo la isku dayana oo wanaagana cid ma ka soo horjeesanaysa waa iska sunnaha bani aadamka iyo nolosha ka mid tahay laakiin inta badan waxa isku raacdo ayaa mar walba shaqeynaya waxaan idin ballan qaadaynaa inay naga go'an tahay inaynu nabadana hagaajino xuquuqaha aad leedihiin waxaa laga yaabaa inaanan maalin wada fulin karin wax idinka maqan ama maamul ha noqdaan ama ciidan ha noqdaan ama shaqaale dawladeed ha noqdaan laakiin xukuumaddu waxay ku dadaalaysaa maalin walba waxaad ka cabanaysaan iyadoo la soo kala horeysiinayo inay dhammaantood insha Allah wax ka qabato hadii la yiraahdo dawladda waxaa xaq u leeyihiin insha Allah waana ka wada hadli doonaa si gaar ah kulliba halkan dacaawo ku dhamaan maayo arrinku gudiyaduna saa la sheegay kala tegi maayaan waxaynu u bedeli doonaa waxaynu ka wada hadalnay in la qoro oo kolba wixii la fuliyayna markaa la saxo haddii la yidhaahdo waxaan mahadnaqayaa Suldaan Saciid iyo dhammaan intiinan ergooyinka iyo intii guddiga farsamada ka soo horeysay insha Allah maanta halkii aad kaga jirteen Somaliland baan rabnaa inaad soo gashaan inaad ku jirtaan inaad talada wax ku yeelataan